horta hogaaminta in laga hadlo iyo 15 daqiiqo aad bay u kala yar yihiin laakiin dad aad u qiimo badan oo Cabdi Yuusuf iyo Professor Waarig baa iga dambeeya marka waxaan isku dayi doonaa sida ugu fudud ugu kooban inaan maaragtay u sheego aan ay hope inay macna idin sameyn doonto Ilaahay idinki horta hogaaminta ereyga hogaamin ama leadership ayaa marka hore ay tahay inaan isla fahanno wuxuu yahay ama waa kuma qofka hogaamiyaha ah soo hogaamin marka aan leenahay waxaan ka hadlaynaa saameyn dad lagu sameynayo oo uu sameynayo qof si loo gaaro hadaf ama meel loo socdo marka afar qodob ayaa muhiim ah inaan fahanno marka aan hogaamin ka hadlayno koow waa inuu jiro qof raba inuu dad hogaamiyo oo hogaamiye ah oo awood u leh inuu dad wax u sheego wax dhacsiiyo saameyn ku yeesho fikir ama ficil intuu u sheego ay sameeyaan marka koow awood inuu leeyahay oo dadka ku saameeyo marka influence saameyntu waxay noqon kartaa mid wanaagsan waxay noqon kartaa mid xun marka hogaamiyaha wanaagsan iyo hogaamiyaha xumi waxay ku kala fiicnaanayaan ama ay ku kala duwanaanayaan had iyo goor midna wuxuu isticmaalayaa asaaliibta xun si uu dadka saameyn ugu yeesho midna wuxuu isticmaalayaa asaaliib wanaagsan si uu dadka saameyn ugu yeesho mid waliba dadka meel buu u wadaa hadaf buu u wadaa meel buu doonayaa inay dadku gaadhaan oo yool iyo gool buu ku wadaa hogaamiyaha wanaagsan iyo hogaamiyaha xumi waxay ku kala duwanaanayaan midna wuxuu u wadaa dadka meel wanaagsan midna dadka wuxuu wadaa meel xun marka hogaamiyaha wanaagsan ee dadka ka raraya meel ay joogaan ee u raraya meel ka wanaagsani waa qofka runtii ku sifaysan sifooyin waxa la sameeyay daraasaad fara badan baa laga sameeyay hogaaminta ilaa hadda la iskuma raacin 100% waa wax socda oo bini aadamka kobaciisa iyo duruufaha iyo waayaha kala duwan la koraya laakiin waxa jira waxyaabo aasaas u ah qofka hogaamiyaha inuu ku sifaysnaado hadda waxa jira daraasad la yiraahdo leadership challenge oo aad runtii aan u maaragtay uga hadalay inta badan oo aad ugu dhow in ficil laga dhigi karo waxay yiraahdeen 4 sifo oo hogaamiyaha wanaagsan laga rabo ayaa adduunyada wixii la daraasaynayay la isla waafaqay inay yihiin 4ta ugu horeeya waxa koow ka ah la yaabka daacadnimo honesty inuu qofku run sheegayo iyo inuu yahay qof la aamini karo oo aamina qof dadku ka nabad galeen ummadda xoolahoodu ka nabad galeen wixii loo dhiibay arrin iyo adduunba aaminku ah number 2 dadka run sheegaya markii la daraaseeyay ee la eegay ee la baaray waxay ku ururtay ama yani qodobkaas waa credibility waa aaminaad waana labadii sifee nabi Muhammad alayhi salaam uu lahaa qabla nubuwa ee ahayd as-sadiq al-amin soo hadaad rabto inaad hogaamiyo wanaagsan noqoto koow waxa laga rabaa inaad noqoto runlow anigu Soomaalidu baan ku arkay dad qofka beenaalaha ah ee khaayinka ah ee tuuga ah u taqaana inuu hogaamiye wanaagsan yahay hogaamiye saameyn leeyahay hogaamiye dadka hagi kara inuu yahay ummadda Ilaahay oo dhan waxay isku raacsan tahay hogaamiyuhu inuu noqdo qof run sheegaya oo ka dhabaynaya waxa uu ku sheegay ka dhabaynaya waxa uu ku yiri waan sameynaya laba waa inuu yahay qof competent ah karti leh wax qaban kara shaqayn kara fakari kara yani aan ahayn qof jilicsan saddex waa inuu yahay qof inspiring xiisa gelin guubaabo jecelaysiin dadka had iyo goor maartay hore u wadaya ugu dambeyntii qodobka afraad ee isku raaceen waxa weeyaan waa inuu yahay forward looking qof aragti dheer leh oo had iyo goor meel fog wax ka eegaya waxaan rabaa labada eray ee hogaamin iyo halabuur hogaamiyuhu waa ayo hogaamiyuhu waa qof hal abuur leh hal abuurkaana dadka ka dhaadhicinaya oo u hogaya inay meel ka fogaadaan halkay maanta joogaan labada eray marka hogaamin iyo hal abuur aad bay isugu maran yihiin haddii aanad hal abuur lahayn hogaamiye ma tihid
laba shay baa kala duwan inaad xil qabato iyo ood manager noqoto iyo inaad hogaamiye noqotaa waa laba shay oo kala duwan xil waad qaban kartaa oo madaxweyne ugu sareeyo inaga xageeno madaxweyne waad noqon kartaa laakiin inaad noqotaa kaama dhigaysa inaad hogaamiye tahay wasiir waad noqon kartaa gudoomiye shirkadeed waad noqon kartaa gudoomiye jaamacadeed waad noqon kartaa macallin waad noqon kartaa laakiin haddaanad sifooyinka hogaaminta lahayn ama aanad baranin oo aanad dhisin sifooyinka iyo tilmaamaha hogaaminta laga rabo ficilada iyo dhaqanada hogaamiyaha laga rabo haddaanad dhisin noqon maysid hogaamiye wanaagsan adduunyada hadday tahay nolosha siyaasadda iyo hadday tahay waxbarashada hadday tahay ganacsiga hadday tahay teknolojiyadda iyo hal-abuurka hadday tahay adduunyada yacni daafaheeda oo dhan waxyaabaha la qabto dadka hirgeliyey ee hagaajiyey ee horumariyey waxay ahaayeen hogaamiyeyaal rag iyo dumarba noocay doonaan da'doodu ha ahaatee ku dhac yeeshay oo meel gaarsiiyey hogaaminta marka aan leenahay da' maaha oo aqoon maaha oo dhalasho maaha oo waxyaabaha aynu had iyo goor sifooyinkaa iska fudfuda dusha yaalla maaha adigoo yar ayaad hogaamiye noqon kartaa adigoo weynna waad noqon kartaa adigoo aqoon badan leh oo shahaadooyin sitana waad noqon kartaa hogaamiye adigoo shahaadooyin badan sitana hogaamiye ma noqon kartid adiga oo maaragtay ka dhashay family royal family-na hogaamiye waad noqon kartaa adigoo aan ka dhalanna waad noqon kartaa laakiin waa qofku halka uu isgeeyo iyo meesha uu hankiisa iyo himiladiisa iyo hilaadintiisa iyo maaragtay ambitionkiisa halka uu ku xidho weeye yacni qofka bini aadamkaahi si uu hogaamiye u noqdo tusaale ahaan ganacsi uma baahna inuu lacag badan haysto sida imka saami oo kale isagoo aan lacag haysan ayuu ambition la yimi barnaamij buu bilaabay maanta waxaan u malaynayaa geyiga Soomaalidu degto يعني برنامج كم جعوين أو أونلاين ما جرو لكن نصيب درو سيدا وشيء جي سومالي بكرة شو سومالي دو قف كذا ما قيمة يسوع سومالي دو مالين تعاد لما تو الله هو نحرسته سيدا محمد إبراهيم ورسمه هدراوي أسيوك أيوه الجارية مالين تعسي كوي كادر تيرنيان مالين تعسي سبوكا وضيمان إيسا maalintaasaa lagu wada ammaanayaa laakiin inta aad nooshahay qofna ma qirayo contributionka iyo barnaamijka iyo waxa dadka ku soo kordhisay runtii uma baahna qofku inuu hanti badan haysto ama uu shirkad aasaaso si uu u noqdo hogaamiye sida hadda imka kayska Cabdi Yuusuf nagala hadlayay sagal jad iyadoo jirti uu yimi uu gacanta ku qabtay wuxuu ka dhigay wax ka duwan waxay ahaan jirtay wuxuu ka dhigay meel jirta oo joogta oo magac leh oo maamuus leh maalintii aan la bilaabay shaqada consultancy-ga waxay ahaayeen 250 qof maantana wuxuu gacanta ku hayaa 350 qof in ka badan oo dhalinyaro badan soo kuma imanayso inaad maal badan haysato waxay ku imanaysaa inaad maskax badan haysato waxay ku imanaysaa inaad dhiirani leedahay waxay ku imanaysaa inaad kalsooni leedahay waxay ku imanaysaa isku dayga iyo dhiiranaanta inaanad marnaba isdhiibin haday duruufta iyo waayaha iyo arrimuhu ay ka kala daataan waxa runtii aan jecelahay 5 qodob ama 5 ficil oo hogaamiyaha wanaagsan laga rabo inaan idin ku daro laakiin inta aanan ku darin barnaamijka hogaaminta maxay ugu kalifay barnaamijka hogaaminta macallin baan ahaa dhiga maamulka iyo organizational behavior-ka iyo maadooyinka had iyo goor leadership-ku ku jiro dabeetana marka aan ardayda u dhigayo waxaan dareemi jiray inay aad u xiiseynayaan anigoo yar ayaan wax dhigida bilaabay maamule waxaan ahaa school 500 arday dhigtaan anigoo 20 jir ka yar ah waxaan u maleeyaa 18 jir meelahaas aan ahaa marka yaraan baan ku soo bilaabay inaan wax maamulo dad abaabulo wax hogaamiyo marka mararka qaarkood waxa weeyaan waahibo ilaahay ku siiyay oo adiguna aad si horumarinayso mararka qaarkoodna dadka qaarumay dhalanin ee waxay barasho iyo isku day ayay ku sameeyaan
taasi markaa xiise waxay gelisay inaan daraaseeyo runtii theory-ga iyo aragtiinada iyo waxa laga qoray leadership-ka ayaan xoog u daraaseeyey waxaan akhriyey buug kasta oo magac leh oo leadership ka hadla waxaan ahaan jiray dadka maaragtay runtii aad wax u akhriya sidii imika meeyo jaaniskayga yaraaday waanaan idinkula talinayaa intaa yaryar tihiin inaad xoog wax u akhridaan waayo markaan ahaa da'diinaas oo kale 20 dhowr iyo 10 aan ahaan jiray wixii aan akhriyi jiray maanta marka aan wax dhigayo waxay ii hor yimaadaan sida muraayada waayo markaad yar tahay waxaad akhridaa xaashi cadbato way kugu dhagayaan weligaana ma ilaabaysid laakiin markaad weynaato xataa waxaad akhrido waad ilaabaysaa barnaamijkii markaa waxaan ka fikiray sidii uu dadkan yani Soomaalida ah ama Somaliland ama Soomaaliya ama kuwa Ethiopia ama kuwa Kenya ama kuwa Djibouti cunsurka Soomaaliga markaad saa u eegto waxaynu ku noolahay dhul aad u qaniya oo Ilaahay nimco dhigay cimilo wanaagsan laakiin in aynu dawladahayn oo 60 sano ka badan 60 sanadooda iyo in badan oo ka sii horeysay haddana maaragtay faqri iyo dhibaato iyo baryo iyo gaajo iyo mushkilad ayaynu ku dhex jirnaa su'aalaha marka aan isweydiiyo shakhsiyan waxay ahayd maxaa waxaan inoogu wacan waxa ii soo baxday mushkiladda ina haysataa inaanay ahayn resource yari sida ummadaha qaarkood dhibaatadaasi haysato ee ay tahay hoggaan la'aan ama hoggaan xumo dabeetana waxaan ka fikiray wariyo sidee baynu hoggaaminta u dhisnaa dabeetana wixii aan akhriyay iyo wixii aan soo akhriyay ayaan isku dayay inaan tababarro u rogo markii dambana waxaan ka qayb qaatay oo aan tagay tababarro fara badan aniga iyo ragga aan saaxiibada nahay ee aan tababaradan wada bixino qaar ka mid ah dabadda aan u baxnay lacag badan baan ku bixinay wadamo shisheeyaan tagnay saacado fara badan ayaanu safar ku jirnay taas oo dhan waxaan u ordaynay bal in barnaamijka hoggaamintu uu noqdo wax macna leh oo dadku ay maaragtay gartaan oo qiimo leh runtii anigoo jooga waxaan ku xasuustay nashqada noloshaada magaalada Los Angeles ayaa tababar baan ka qayb galay leadership-ka oo kamid ahaa geediga nolosha ama geediga maaragtay dadaalka kamid ahaa dabeedna barnaamijka design your life plan ee hadda imaka kamidka ah barnaamijka leadership-ka oo Cabdishakuurna oo ragii soo maray kamid ahaa iyo gudoomiye Cabdi Yuusuf ayaan qoray oo lagu yiri qora bal qofka hadii maanta lagu yiraahdo Soomaaliland maxaa ka khaldan iyo sideen u hagaajinaa iyo maxaa aynu saxnaa maanta dhan baad hadlaysaa hadii lagu yiraahdo sidee baynu problemska jira u saxnaa way ka soo gaabanaysaa marba mar ka dambaysa hadii lagu yiraahdo adigu naftaada maxaa ka khaldan maxaad saxaysaa wax alla waxa tiraahdaa baad garan waaysaa adduunka exercise-ka ugu adag waa marka naftaada lagu diro runtii exercise-kaasi anigoo marka horeba u tagay barnaamijka haddana wuxuu noloshayda ka bedelay wax fara badan waxaan soo noqday anigoo garanaya waxa aan ka hadlayo anigoo runtii jooga 15 December Seattle ayaa waxa iga duubay barnaamij website oo la jiray Toga Heer waxaan ka hadlayaa haddaad dib u eegto ama aad baadho walaga yaabaa inaad hesho waxaan ka hadlayaa oo ka sheekaynayaa oo aan sawirayaa barnaamijkan hoggaaminta ee hadda imaka hirgalay oo geyga Soomaalidu dhan wada gaaray oo aan jirin oo sawira oo suurada oo sidan imka uu dhaco iyo siyaabo soo socda iyo barnaamijyo soo socda ah marka qofku uu aragti iyo vision yeesho ee ay u sawiran tahay laakiin uu ka hari waayo oo uu hirgeliyo waxa suurtagal ah Ilaahayna uu kaashado inay u hirgasho runtii markii aanu bilaabaynay qof walo aan u sheegnaa oo nala yaabana dad yar oo tiro yar ayaa ku dhiiraday inay ka soo qayb galaan oo maaragtay ay barnaamijka nala hirgeliyaan oo qaarkood ay ku bixiyeen lacag oo qaarkood ay ku bixiyeen talo oo qaarkood ay ku bixiyeen maaragtay taakulayn iyo maaragtay tusaale waxaana runtii maaragtay guul runtii ahayd inuu hirgalo oo maanta dad fara badan oo inaga waxayna taraya oo barnaamijkani maanta uu ka mid yahay inay barnaamijka soo mareen leadership-ka hadaba waxaan rabaa 5 ficil oo hogaamiyaha wanaagsan laga rabo inuu maaragtay hirgeliyo inaan si yar oo kooban ay ku taabtaado
waxay isku raaceen daraasaadka la sameeyay hogaamiyaha si aad u noqoto mid wanaagsan oo lagu daydo oo tusaale ah in laga rabo kow model the way kun qudwa tusaale noqo tusaale inaad noqoto maxaa kuugu filan nabiga ilaahay amaanayo wuxuu yiri walakum fi rasuulillahi uswatun hasana ilaahay nabigiisa waxa idin ku sugan inaydan aad istaag kaliya ma sameey kartide hogaamiyo waxa laga rabaa dadka inaad karti geliso waxa makin ila akharin dadka inaad karti awood aqoon kalsooni inaad siiso la xisaabtanto dhiiri geliso ugu dambeyntii qodobka shanaad ama ficilka hogaamiyaha wanaagsan laga rabaa waxa weeye inuu dadka dhiiri geliyo waa encourage the heart ama shajع القلوب dadka quluubtooda inuu dhiiri geliyo waa inuu yiraahdo ku socda waad samayn kartaan waad samayseen maarta laakiin mid baan idin sheegaya wax halabuurka iyo hogaaminta iyo waxyaabaha la samaynayo oo dhami ma aha hadal sida motivational speakers ku marar fara badan inta idin soo hor istaagaan ay ku yiraahdaan yes you can do waad samayn kartaa waad samayn kartaa waad samayn kartaa maaha waad samayn kartaa waxa ka horeysa imaka samee waayo qofku hadaanu maalintiisa waqtiga uu taagan yahay aanu ka faa'iideysan barina kama faa'iideysan karo adduunyada wada aragteen maanta way guurtay tiknoolajiyad way guurtay 2013 baa Mareykanka igu horeysay Washington baan joogay taksiilayaashu magaalo ka taksi badan waligay ma arag markaad gacanta taagto 5-6 taksi baa mar wada istaagi jiray 2018 baan ku noqday wadaan istaagay taksi waa waay wixii istaagaba mar dambaan nani istaagay markaasaan ku maxaa dhacay wuxuu igu yiri insta uber bahal uber la yiraahdo haysto qosan dhaweeyaho kale maanta wuxuu yiri marka aad daasho baad iska xidhaysaa markaas aad gurigaaga tagi kartaa laakiin intuu ku shidan yahay gurigaaga ma tagi kartidba marka taxigi aad raadinaysay wuxuu yiri qof meel buu ordaya marka Amazon waxaan tagay Seattle ba xaruntooda ku taala meel aad u qurux badan waxa la yiraahdaa Amazon Sphere waxay ugu tala galeen dadka Amazon ka shaqeynaya inay halabuur yeeshaan dabadeedna waxay sameeyeen kayn quruxda aad yaabayso environment maaragtay aad u qurux badan oo ay ugu tala galeen dadku inay halabuur ku sameeyaan soo eegada halabuurku wuxuu kaaga baahan yahay wixii caadiga ahaa ee la yaqaanay inaad intii la yaqaanay inaad dhaafto duruuftii iyo waayihii iyo intii kugu xeernayd inaad weydaarato waxa jira laba xaaladood waxay yiraahdaan beta state iyo alpha state haddii xafiiskaagii ama gurigaagii ama meeshii aad taqaanay iyo xayndaabkaagii aad weli ku dhex jirto halabuur lama iman kartid waxa la rabaa markaad halabuur la imanayso Soomaalidu waxay tiraahdaa bartiyaqaan bari uma karodho inaad meeshaada dhaafto inaad maaragtay environment ka duwan environmentka aad ku jirto aad ka raadiso aagaaga dabadeedna aad ka fikirto afkaar cusub inaad ka fikirtaa mararka qaar kood waxay ka dhigaysaa in dadku ku arkaan qof waalan in dadku ku arkaan qof sharkaxoora in dadku ku arkaan qof kibray oo ama shaqadiisii ka tagay ama ladnaantii iyo reerkoodii iyo meeshii yaradii noloshii yaradii ku jiray qof maartay ka kibraya laakiin maalin kale ayay dadku garanayaan waxa aad ka hadlayso iyo waxa aad sameynayso hadda 8 sano ka hor waxa aanu ka hadlaynay iyo maanta aad bay u kala duwantii maanta waa loo garaabaa laakiin 8 sano ka hor markaan shaqada ka tagayay qofna ima garaabi jirin maantana waxaan rajaynaynaa geeska Afrika ayaan ka fikiri jirnay geeska Afrika uu nala weynaan jiray maanta markaan geeska Afrika wada dhamaynay hadda imika hamigaygu geeska Afrika waa dhaafsan yahay waxaan rabnaa adduunyada inaan wax la qaybsano caalamka had awal waxaan ku hadli jiray af Soomaali markaan casharada online ka wada aragteen baa laga yaabaa su'aasha ay hortimi waxa weeye war hadaad Soomaalida oo kaliya la hadasho soo inta yare 20 milyan gabigooduba maaha hadaad adduunyada kale la hadasho soo intaas oo bilyan oo qof targetkaagu noqon maayo soo adiga oo awood u leh inaad 6 bilyan oo dad target garayso oo hadaad ka hesho 1 milyan oo qof oo wax ka dhageysta laga yaabaa inay adduunyada kuugu filan tahay magacna kuugu filan tahay manfaacna kuugu filan tahay maxaad halkaaga u yaraynaysaa waxaan idin sheegayaa dhalinyarada tihiin chance fiican baa haysataan caalam
lagu kala dheeraynayo wax fudud oo maanta tiknoolajiyad la yidhaahdo oo adigoo gurigaaga jooga aad dhigan karto adigoo gurigaaga jooga shaqaysan karto adigoo gurigaaga jooga wax abuuri karto ayaad haysataa fursadda maanaan haysan anigii cabdi yuusuf markii aanu dhalinyarta intiina la leekayn wiiga weynaa waan malaynayaa mise anaa ka weynaa anaa yar ka weynaa baan u malaynayaa maanan haysanin runtii waxay ahayd dadaal iyo rafaad iyo orod iyo maaragtay kaba kulayl laakiin maanta fursad ka duwan baad haysataan waxaad ka dheerayn kartaan dadka maanta Soomaaliland ugu maalka badan idinka oo yaryar oo aan meel gaarin maanta waad aragteen adduunyada 10 company ugu waaweyn kuwii petroleumka ma aha kuwii macdanta ma aha kuwii ugu waaweynaan jiray ma aha waa kuwa technology based companies Facebook iyo Google iyo Amazon iyo waa inama yaryar waa dad dhalinyaro ah waad aragteen Facebook ni kale intuu dhalinyaro intuu yahay marka eegada waxaad samayn kartaa wax ka weyn wixii markii hore la samayn jiray oo ay ku sahlayso duruufta iyo waayaha maanta taagani laakiin waxa laga rabaa kow inaad noqoto qof ilaahaysa ku xiran markaad qof muslim tahay laba waxa laga rabaa qof dadaal badan inaad tahay waxa laga rabaa qof daacad ah inaad tahay waxa laga rabaa qof aamin ah inaad tahay tiknoolajiyada sida looga shaqeystaa waa amaano waxa laga rabaa qof karti badan inaad tahay waxa laga rabaa inaad saacado badan shaqeyso waxa laga rabaa committed inaad tahay waxaad mararka qaar kood arkaysaa qof dhalinyaro ah oo ballanta xataa aan ka soo bixi kareyn ma aragtaa soo waxa laga rabaa waxa aad tiraahdo iyo waxa aad sameynaysaa inay yihiin wax dhaba oo xaqiiqo ah aad baan uga xumahay in waqtigu inagu yar yahay waxaan u soo gaabinayaa maadaama ay iga hor dambeeyaan dad maaragtay kale oo akhyaara intaasaan ku soo ururnay assalaamu calaykum waraxmatullahi dad hogaamiya shirkado waaweyn oo waddanka ku yaala marka